guddida qaadhaan rurinta dhismaha wadada Sanaag ayaa shir jirayd ay maanta ku qabteen magaalada madaxda gobolka Sanaag Ceerigaabo si ballaaran ugu hambalyeeyay qurba joogta ku dhaqan wadanka boqortooyada Ingiriiska gaar ahaan magaalada London sidii lama hilmaamaanka ahayd ay uga qayb qaateen qaadhaan rurinta dhismaha wadada Ceerigaabo wajigoodii koowaad shirkan jirayd ayaa waxa uu horeynba ka hadlay afayeenka guddida qaadhaan rurinta wadada Ceerigaabo Saciid Maxamuud Ismaaciil Bidaar oo shaaca ka qaaday inay hawlihii qaadhaan ururinta wadada Sanaag ay marayaan halkii ugu fiicnayd Sheekh Maxamed Cali Biixi oo kamid ah mashaayikhda ugu waaweyn culimada Soomaaliyeed isla markaasina guddida qaadhaan ururinta wadada Ceerigaabo xubin ka ah oo isna shirkaasi jirayd ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa bayaamiyay fadliga iyo xasanaadka ku duuban bixinta qaadhaanka ku wajahan horumarinta danaha bulshada isagoo sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاول نقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله من كان تذكر هذا الدين إلهي ومهدنا وعن رنتي أنا سيئت أكيد يا سيئت كريم يا وهذا يا بليو يدعى مدير يا والله أقوله الرئيسي قرب شوكتي يجو الشري سلام رهان تانا بلاوي وحي أي ودادة تاني وري لا يوجيسن لهاي waxay tahay rasuulkeenu markale wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam musanna fil islaam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghayri an yunqas min ujuri nas shay'a ninkii dadka u jideeyay jid wanaagsan waxa uu leeyahay jidka uu jideeyay ajarkiisa iyo dhammaan cid allayaale iyo ciddii jidka marta dabadii iyadoo aan kuwa sameeyeen ajarkooda laga nuqsaaminay oo iyana goonidooda ay ajarkooda u helayaan jid wanaagsan ayay bilaabeen waxaan filayaa qurba joog kalena haddii ay yihiin kuwa waqooyi Mareykan iyo haddii ay Australia joogaan iyo haddii ay Carabaha joogaan iyo haddii ay dalalka kale joogaan inay iyaguna ku dayan doonaan baan rajaynaya waa camal fi sabiilillaahi ah waa sadaqad jaariya waa camal laga helayo ajar wadada wax ka qabadkeedu أجر باقفك أقول كردية أقول سيادية إيمانك أقول كردية وحأقول متيسنا يا إنه جنة كوجا لقفكو مركا وددا شقذي ذا وقفكو كقيب قاطو ولو حتى وحير وكل حين وكل متيسنا يا جنة جلتان كذا وحيتعي بارك الله فيكم تعدي ذوحة دعينينا ادقل لي عليه عدي كقيب قاضتي أم بها كقيب قاضتو مسكح أمبا مال أمبا مرق مدى أهاتوبا صدح ذا سولي سوكي باني إن شاء الله تعالى قلي دونتا وحن لا يعيدت كاس كغيب قلي ايوه حوري دنبقود الله دافو دنبق والدكود الله دافو سعادة اللي بدو دارود الله السيو عفسي عافماد الله السيو مرادده وسندكت الله وقديبو شدائد يكربوين كان الله بالمريو قفوا لبا مراد بوليه هاي ماشي وحكتبنايو إلهي سبحانه وتعالى يسوي المراد كيس وقوميو يسوي صوت دقيقة إلهي هو يدينينا وحا أي تهي تذكر لنا إن يكون إذان بارك الله فيكم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم gudoomiye ku-xigeenka guddida qaadhaan ururinta wadada ee gobolka Sanaag Saciid Barre Qorwaa ahna gudoomiyaha ganacsatada gobolka Sanaag oo isaguna xaqiijiyay sida bulshada gobolka Sanaag ay naf iyo maalba ugu horayaan ka qayb qaadashada dhismaha wadada Sanaag sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka guddida qaadhaan ururinta wadada Sanaag ee gobolka Sanaag Mudane Barre ahna gudoomiyaha ganacsatadu waxa uu carabka ku adkeeyay sida bulshada ku dhaqan koonfurta Sanaag ay xilligan diyaarka uga yihiin xoolihii noolaa ee ay madax dhaqameedkoodu dusha u riteen inay kaga qayb qaataan wadada xafladii ballaarnayd ee qiimaha lahayd ee lagu qabtay London bisha 16keedii xafladda waxaan ku hambaliyaynayaa intii soo abaabushay intii ka soo shaqaysay inta lacagta ku bixisay haddii aanu nahay reer Ceerigaabo waa ku faraxnay aad iyo aad baan ugu faraxnay annaguna sidaa boqorka iyo idinku sheegana fahayeenka guddigu
guntiga dhiishaanu iskaga dhignay muruqayaga iyo maalkayaga iyo maskaxdayadu intuba waa wada shaqaynaysaa ururadayada bulshada ururka haweenka ka dhalinyarada guurtida waayeelka waxgaradka waa loo wada heelan yahay haddii aanu nahay guddigii qaadhaan ururinta ee gobolka weliba guddigoodii fulinteedii waanu idin hambalyaynaynaa dhammaan qurba joogta maraykan australia yurub afrika meel kasta ay joogaan waxaanu leenahay sidaa london ay u bilowday inaad ka sii siyaadisaan annaguna waanu idinku hambalyaynaynaa waanu idinku dhiirigelinaynaa waa ku faraxsannahay bulshada aanu wakiilka kaga nahay qaadhaan ururinta gobolkana waxa weeyaan waanu idinka wakiil baanuna waa idinku hambalyaynaynaa waxa weeyaan hawshiina sidaa loo sheegay meel fiican bay noo maraysaa sida beesha koonfurta sanaag way fadhiisteen guurtidoodii waayeelkoodii dhallinyaradoodii way qaybsadeen wixii lagu dhawaaqay waxa weeyaan waxay u qaybsadeen guddi qorshaysana way u sameeyeen xoolihiina waa bilowdeen waxa weeyaan wax waliba annaga sidii loogu talagalay bay u socdaan waanu idin hambalyaynaynaa intaa ayaan kusoo gaabinayaa gudoomiyaha guddida qaadhaan ururinta wadada ee gobolka sanaag mudane boqor maxamed boqor axmed cali ducaale oo gebagabadii shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa isaguna ka dalbaday qurba joogta wadamada waqooyiga america australia yurub wadamada carbeed iyo afrikaba inay kaalin wax ku oola ka qaataan qaadhaan ururinka loogu yaboohayo dhismaha wadada Ceeri Gaabo isagoo gudoomiyuhu carabka ku adkeeyay sida ay muhiimka ugu tahay guud ahaanba dalka Somaliland helitaanka ama dhamaystirka dhismaha wadada Ceeri Gaabo waxaanu boqorku si weyn ugu hambaliyay isla markaasina ku bogaadiyay doorkii reer London ay ka qaateen qaadhaan ururinta dhismaha wadada Ceeri Gaabo waxaan maanta xafladda u qabanay inaan u mahadnaqno beelaynta reer England ee 16 bisha ku qabatay shirka magaalada London kuwaasoo isugu yeedhay inay bixiyaan qaadaankii wadada Ceeri Gaabo iyo Burco isku xidha lagu dhisi lahaa sida xogtana ku hayno ilaa hadda $700,000 ayaa la dhigay miiska iyadoo la filayo in lacagta la qorayna gaarayso $1,500,000 waxaan xaqiiqsaday maalinta ama habeenkan daawanayay fiidiyoga inay wadada Ceeri Gaabo dhisantay xariiqdan u qaatay kuwa kale ee qurba joogga ee degan Yurub Maraykan Canada Australia iyo dhul kale badan waxaan filayaa inay halka ka shidaal qaadanayaan oo ay noqonayso arrintu yaan laga badin waxaan u mahadnaqayaa dadkii hawsha abaabulay si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha guddiga wadooyinka Somaliland wasiirka madaxtooyada Xirsi waxaan kaloo u mahadnaqayaa gudoomiye ku-xigeenka oo had iyo jeer aanu xidhiidhno Cabdiraxmaan Talyalle oo nala socodsiiya nagana xog qaata waxaanu qabanay halka hawshu marayso sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa maareeyaha wadooyinka oo iminka isaguna ku sugan Sacuudi Arabia oo si gobol xaaraya guddiga u baxaysa Carabta haddii aan soo noqdo arrinta Ceeri Gaabo iyo waxa halka ay marayso waxaan ugu horeysiinayaa beelihii gobolkan dhamaantood waa dadaalayaan sida uu sheegay afhayeenku waxana soo gaaray document ka yimi beesha Warsangeli iyo mid ka yimi beesha Mali Axmed labadaas waanu haynaa iminka sidoo kale waxaan rajaynaynaa beesha Habar Yunis iyo Habar Jeclaan iyo qoraalloodii iyagana degdeg loo soo gaariyaa waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada oo dhalinyaro arday iskuulada dhigata hoose iyo dhexe lacagtoodii ay ku shubeen shalay $15,000 iyo 48 milyan gaaraysa oo ay bangiga dhigeen waxaan filayaa wasaaradaha kale ee gobolkan in iyagana laga sugayo sida wasaaraddaasi u goysay lacagta dheeraadka ah ee aan ka mid ahayn tii ay la qabtay dalka oo dhan taasuna gaar bay uga go'aysay tanuna waa mid kale oo dheeraada sidoo kale aan filayaa in ciidamada qalabka sida wasaaradaha gobolka degan wakaaladaha meel kasta oo shaqaale joogo inay ku daydaan wasaaradda laguna abaalmariyo waxa ay qabteen taana waan soo jeedinaynaa haddii aan la yiraahdo waxaan rajaynayaa in annagu gobolkan Sanaag iyo degmadiisa Ceeri Gaabo dadkeedu ay heegan u yihiin tuulo
degmo fadhi waxaan nala kulanay guddiga nimanka maxay ahayd nasamadoonada tuulooyinka haysta oo loo ballan qaaday inay wacyi geliyaan tuulooyinkii inta loo imaayana ay sii diyaariyaan xoolihii waxaan rajaynayaa waddadan inay dhisantay hawsheedii inay dhammaystirantay hayaankeennu himiladeennu waa in waddada ceergaabo dhisanto hayaankeennu waa dhammaystirka guusha waddadaasi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdirasaaq yuusuf cali warsomali.com ceerigaabo